Muuqaalka maanta waxaan ku baran doonaa cabitaanka beetraafka iyo saameyntiisa xagga dhiigkarka iyo cilmi baarayaashu waxay ka yiraahdeen. Dhiigkarku ma ahan xanuun u gaara dadka waaweyn, balse sidoo kale waa xanuun ku soo badanaya dhalinyarada. Arrimo kala duwan ayaa lala xiriirinaya sida cunno xumada, jimicsi la'aanta iyo walwalka raaga iyo dhaxal. Fadhiga badan iyo caadeysiga cunnooyinka aan caafimaadka u roonayn ayaa ka mid ah waxyaabaha siyaadiya halista dhiigkarka. Haddaba, cilmi baaris lagu sameeyay dalka Ingiriiska ayaa shaacisay in geedka beetraafku ama beetrootka uu si weyn u caawiyo in cadaadiska dhiigga lagu soo celiyo heerkiisa dabiiciga weliba muddo bil gudaheed. Maxay cilmi baarayaashu sheegeen? Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa tijaabo ku arkay in koob cabitaanka beetraafka oo maalin kasta la cabo ay si cajiib ah ugu shaqaysay dad badani, iyadoo cadaadiska dhiigga ku celisay heerkiisii dabiiciga ahayd muddo 4 isbuuc gudahood. Waxaa xusid mudan in dadkii tijaabada lagu sameeyay uu cadaadiska dhiiggoodii sare u qaaday kadib markii ay joojiyeen cabitaanka beetraafka. Cilmi baarista oo ay sameysay jaamacadda Queen Mary ee ku taala magaalada London ee cariga Ingiriiska ayaa ku talisay in cabitaanka beetraafka uu noqon karo daawo dabiici oo cadaadiska dhiigga ku celisa ama ku ilaalisa in uusan dhaafin heerkiisa dabiiciga. Daraasaad ay sameysay jaamacadda Queen Mary ee cariga Ingiriiska ayay cilmi baarayaashu ku sheegeen ama ku eegeen sida cabitaanka beetraafku u kobcin karo caafimaadka wadnaha. Waxayna sheegeen in maadada nitrate ee ku jirta beetraafka uu jirka bedelo ama u bedelo maado kale oo loo yaqaan nitric oxide, taasi oo dejisa halbowlayaasha dhiigga isla markaana hoos u dhigta cadaadiska dhiigga. Waxay daraasaad ku tilmaamtay in maadada nitrate aysan ka yareysan dawooyinka dhiigkarka marka la barbar dhigo waxtarkooda, iyadoo beetraafka iyo khudradda caleemaha cagaaran ay yihiin meelaha ugu fiican ee laga helo maadadan. Waxaa lagu taliyaa khudaartan in aan la karinin marka la isticmaalayo maadaama dabka uu ka dilayo maadada nitrate. Sidaa awgeed waxaa habboon in la uumiyo ama cabitaan ahaan loo shiito. Cabitaanka beetraafka oo aad joogtayso maalin kasta waa hab dabiici ah, faa'iidana u leh maareynta cadaadiska dhiigga sida ay tilmaamayaan daraasaadihii ugu dambeeyay. Cabitaanka beetraafka wuxuu ka qayb qaataa caafimaadka wadnaha, mana lahan wax cillad caafimaad. Dadka qaar ayaa sheegay in cabitaankan dad badan ay u isticmaaleen xagga dhiigga. Cabitaanka beetraafka waa cabitaan laga sameeyo xididka khudaarta loo yaqaan beetroot oo caan ku ah midabkiisa casaanka madow iyo dhadhankiisa macaan yaraha. Sanadihii u dambeeyay cilmi baarisyo badan ayaa diiradda saarayay saameynta uu cabitaankan ku leeyahay caafimaadka, gaar ahaan marka ay timaado dhiigkarka ama hypertensionka iyo wareegga dhiigga. Waxaa hoos u dhigaa dhiigkarka si dabiici ah. Cilmi baaris caafimaad oo lagu sameeyay jaamacadda UK, Mareykanka, Australia waxa ay muujiyeen in cabitaanka beetraafka uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga 4 ilaa 10 mmHg, gaar ahaan 3 ilaa 6 saacadood gudahood kadib marka la cabo. Sababta ugu weyn waa in beetraafka uu hodan ku yahay nitrate dabiici ah oo marka uu jirka burburiyo uu isu bedelo nitric oxide, kaasi oo ballaariya xididada dhiigga sidaasina ku fududeeya socodka dhiigga. Waxay wanaajisaa wareegga dhiigga iyo shaqada wadnaha. Nitric oxide-ka wuxuu gacan ka geystaa in la yareeyo culayska wadnaha isagoo kordhiya awoodda dhiigga ee gaarsiinta oksijiinka unugyada jirka. Taas ayaa ka dhigaysa cabitaanka beetraafka mid faa'iido weyn u leh dadka qaba dhiigkarka iyo kuwa doonayo in ay ilaashadaan caafimaadkooda wadnaha. Cilmi baaris lagu daabacay Hypertension Journal 2015 waxa ay muujisay in dadka cabay 250 mg oo beetraaf maalin kasta muddo 4 toddobaad ay yeesheen cadaadis dhiig oo si joogto ah hoos u dhacay. Jaamacadda Exeter ee UK waxay caddeysay in cabitaanka beetraafka uu sidoo kale kordhiyo tamarta jirka, gaar ahaan dadka da'da. Faa'iidooyinka kale ee cabitaanka beetraafka: kordhinta tamarta iyo adkeysiga jirka. Beetraafku waxa uu caawiyaa in murqaha ay oksijiin si fiican u helaan, taasi oo u oggolaanaysa qofka in uu si fiican u shaqeeyo ama u jimicsado muddo dheer.
daaweynta iyo ka hortagga dhiig yarida anemia. Inkasta oo uusan si toos ah u ahayn isha ugu weyn ee birta ama ironka, haddana beetraafku waxa uu kor u qaadaa samaysanka unugyada casaanka ee dhiigga, nadiifinta beerka iyo keliyaha. Beetraafka waxa uu leeyahay walxo antioxidant sida betalains kuwa oo nadiifiya sunta jirka, gaar ahaan kuwa ku urura beerka iyo keliyaha. Kordhinta caafimaadka maskaxda. Nitric oxide-ka laga helo beetraafka waxa uu kor u qaadaa qulqulka dhiigga ee maskaxda, taasi oo hoos u dhigta halista cudurrada sida dementia iyo daalka maskaxeed. Yareynta bararka iyo xanuunka. Beetraafka waxa uu leeyahay walxo ka hortaga bararka anti-inflammatory kuwa oo yareeya xanuunka murqaha iyo kala goysyada. Digniino iyo talooyin caafimaad. Dadka qaba sonkorowga diabetics waa inay cabitaanka beetraafka isticmaalaan si xad dhaaf ama dhexdhexaad ah, maadaama uu leeyahay sonkor dabiici ah. Dadka qaba dhiig karka aad ku daran waa in ay la tashadaan dhakhtar ka hor inta aanay isticmaalin cabitaankan si joogto ah. Kadib marka aad cabto, waxaad arki kartaa kaadi ama saxaro casaan ah. Taasi waa wax caadi oo aan khatar ahayn. Sida loo diyaariyo cabitaanka beetraafka. Waxyaabaha loo baahan yahay: 1 ama 2 xabo oo beetraaf ah, 1 xabo tufaax ama liin, waa ikhtiyaarka qofka, 1 koob biyo nadiif ah. Habka loo sameeyo: si fiican u dhaq beetraafka oo jarjar, ku rid blenderka, ku dar biyo iyo tufaax, isku qas ilaa uu si fiican isu dhex galo. Sii shaandhee ama miir ama cab sida uu yahay u cab, gaar ahaan subaxdii calooshaadu oo maran. Cilmi baarayaashu waxay isku raaceen in cabitaanka beetraafka uu yahay daawo dabiici ah oo aad waxtar u badan leh oo gacan ka geysan karta hoos u dhigidda dhiig karka, wanaajinta wareegga dhiigga, ilaalinta wadnaha. Waa cabitaan qiimo leh oo si fudud looga heli karo suuqyada, una qalmo in lagu daro cunto maalmeedka dadka caafimaad ka raadinaya. Haddaba, dadka doonayo in ay isticmaalaan waa ay isticmaali karaan. Dad badan oo aan lagu talagelin ayaa jira in ay isticmaalaan. Waxaa ka mid ah dadka qaba dhiig karka aad ku daran ama dawooyinka dhiig karka qaata. Beetraafka waxa uu hoos u dhigi karaa cadaadiska dhiigga. Haddii qofka uu horey u qaatay dawooyin dhiig kar ah yareeya, waxaa jira hoos u dhac xad dhaaf ah. Tani waxay keeni kartaa madax wareer, daal iyo suuxdin. Haddaba la tasho dhakhtar ka hor inta aanad bilaabin cabitaankan. Dadka qaba dhiig karka hooseeya ee low blood pressure. Haddii cadaadiska dhiiggaagu horey u hooseeyo, cabitaanka beetraafka waxa uu ka dhigi karaa mid aad u hooseeya. Waxaa laga yaabaa inaad dareento dawakhaad, daciifnimo ama daal joogto ah. Haweenka uurka leh. Inkastoo beetraafka hodan ku yahay folate, vitamin B9, haddana oo muhiim u ah uurka, haddana nitrate-ka badan waxa uu saameyn karaa dhiigga hooyada haddii la cabo ama loo cabo si xad dhaaf ah. Waxaa sidoo kale suurtagal ah inuu keeno dhiig aan si fiican u qaadin karin dhanka oksijiinka. Talo haweenka uurka leh waa inay cabaan si dhexdhexaad ah. Dadka qaba sonkorowga iyaguna waa inay iska ilaaliyaan dadka qaba xanuunada keliyaha. Beetraafka wuxuu hodan ku yahay oxalate kuwa oo sababi kara samaysanka dhagaxaanta keliyaha. Dadkaasi u nugul iyaguna waa inay ka fogaadaan. Carruurta yaryar iyo dadka daciifka, waayeelka, carruurta iyo dadka da'da si dhaqso ah uma burburiyaan nitrate-ka, taasoo keeni karta in dhiig aan oksijiin ku filan u qaadin. Carruurta ka yar 1 sano iyo dadka qaba cudurrada kala duwan ee da'da waa inay isticmaaleen. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Like garee muuqaalkan, la wadaaga saxaabtaada, subscribe inoo saar channelkan, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya hela muuqaalada halkan aan kusoo gudbino.